maanta ay tahay bisha 21 bisha afraad 2018 waxaan cadeynaynaa oo ah dowlad goboleedyada kala ah Jubbaland Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaanu nimad shir naloogu sheegay markii hore naloogu soo diray inuu yahay shir looga hadlayo badqabka saxufiga markaan shirka nimaadnay waxaan cadeynaynaa wixii aan ugu nimaadnay waxaan inay ka jiraan meesha waxaan ugu nimaadnay wax aan ahayn dowladnimo anagu dowlad federaal ayaan nahay anaga dowlad goboleedyada xubinta ka nahay dowladda federaalka aan nahay door iyo xuquuq aan leenahay shacab iyo ummado fara badan iyo wariyaal badan waxay ka shaqeeyaan dhulka ay dowlad goboleedyada xukumaan laguma xusan marka koowaad in aan ka soo qayb galaan wariyaashii sida gaarka loo lahaa marka labaad anagu waxaan xil iska saarnaa had iyo jeer sida aan loo ilaaliyo wasiirada ama xildhibaanada ama hay'adaha dowladda kale ayaa wariyaasha loo ilaaliyo dowlad goboleedyada badanaa ilaah baa mahadda iskale ka sokowna dadaal aan loo sameeyey madaxda dowlad goboleedyada ee igu tala galeen in lagu ilaaliyo wariyaha waxyeelo inayna soo gaarin laguma dilin saanfilaya ilaah baa mahadda iskale Jubbaland laguma dhaawacin wariyo ilaahay mahadda iskale laakiin waa boolis dowladda siyaasadda dowladda oo madaxweynaha lagu hogaamiyo ayaa ah in uu xuquuqdiisa la ilaaliyo waxyeeladan laga ilaaliyo wariyaha uu yahay target dadka cadawga ah ay raadsadaan inuu yahay ayadoo inta jirta ayaa markaa shirki nimid waxaanu loo sheegay wax door ah ama hadal ah ama fikri ah ama wax soo jeedin ah ama ka hadal ah ku leenahay shirki inuu jirin waxaa noo soo baxday kuwa ayaga ay ka arooriyeen magaalada Muqdisho oo ay ku sheegayaan 10 nooc magacyo u sheegayaan ayadoo ay joogan saxaafadda madax banaan ee Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug oo hal qof laga xusan shirka ma ahayn marka waxaan ka sii darnaa ajantihii wixii naloo soo diray waxaan meesha la soo dhigay saas awgeed waxaan cadeynaynaa shirkaas inuu shir ahayn wixii loo sheegay uu sahan cid kasta oo qosaysa ama maalgelisa ama taageerta warbaahinta Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka nahay dowlad goboleedyo xubin kala ahaanahay manhid dad ayaga markay rabaan waxay ayaga gartaan wax ugu yeerayaan waxay ayaga gartaana wixii loo helo warbaahinta Soomaaliya waxay ayaga gartaan wax ay ka siinayaan manhid waxaan sharciga jira dastuura jira waxaan xaq u leenahay waa jiraan hala yaraatee laakiin ma ogolo dowladda federaalka wasaaraddeeda warfaafinta waliba waxaan isleenahay dulqaad iyo waxaan ku wada shaqeyn jirnay iyo waxa la yiraahdo maxay ahayd hebelo macara tufilla macaana tufilla macara la qadle waxaan isleenahay dowladnimada iyo Soomaalinimada ha kacdo horta ha istaagto Soomaaliya wax badan ay rafaadsadeeda laakiin haba yaraatee waxaan u sheegaynaa madaxda sare ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marnaba inay wixii sharciga noo ogolaay in raalli ka ahaan waligoodna wax alla wixii ay ku helaan magaca Soomaaliya warbaahin ay ku helaan xitaa qalan Allah ka dhigay inay dowlad goboleedyada siidan saas awoodeed waxaan cadeynaynaa hay'adaha taageera warbaahinta Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in ay u simaan maadaama dadkii wax lagu aaminay laga rabay in ay wax yaani dadka u kala xaqsooraan ama ay wax u qastaba wuxuu leeyahay ay caadaysteen marlaba inay ay tixgelin hataa siyaan waxaan ka codsanaynaa in xuquuqda Soomaaliya siinayaan ku taageeraan warbaahinta Soomaaliya inay u sibaan maadaama qofkii lagu aamin uu sibaay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug waxaan la qabaa shirkan jaraa'id maanta halkan aan ku qabanay wasaaradaha warfaafinta ka socda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Hirshabeelle sidaad la socono waxaana soo casuuntay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay nagu casuumeen shirkii markaa u nimid wax ajanda iyo qaabka uu u soconayo shirka noomaysan soo dirin markii aan tagnay
hoolkii shirka uu ka dhacayay waxaan la kulannay wixii aan filayna wax ka duwan. waxaan meesha ugu tagnay waxyaabo aan u cuntamaynin waxyaabihii aan ku matalaynay wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada doorka ay ku leeyihiin ayaa meeshaas macnaha aan ka muuqan. sidaa daraaddeed innagoo matalayna amaba ka soconna dowlad goboleedyada in wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya aysan wax door ah markaa halkaa aysan ku muujin, waxaan go'aansanay inaan gabi ahaanba qaadacno shirkaasi si midaysan, codkeennana aan u gudbinno kuna biirinno in aan beri ka nahay shirkaasi iyo waxyaabaha ay hadda kadib ay wadaan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta. waxaan la soconnaa amaba aad la socotaan in wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedyadu ay matalaan saxafiyiinta Soomaaliyeed deegaanada ay ku sugan yihiin. mar haddii saxafiyiintaasi aysan helaynin xuquuqda iyo dowrka meesha uga furan, waxaa halkaasi ka cad in inaguna ay arrintaasi nagu dhacayso mas-uuliyaddeeda. halkan waxaa ka muuqda wax ay noo soo direen oo ah in shirka lagu qabanayo hoolka xalana uu yahay shirka caalamiga ah ee badqabka saxafiga Soomaaliyeed. mar haddii arrimahaasi laga hadlayo waa dareemi kartaan inagu waxaan ka soconnaa dowlad goboleedyo, waxaan matalnaa wasaaradda warfaafin ayaa noo dhisan. wasaaradahaas warfaafinta waxaa noo dhisan ururo saxafiyiinta doorka meeshaasi ay ku leeyihiin dadka mas-uuliyadda u qaadi lahaa waa annaga. mar haddii doorka meeshaasi uusan ka muuqan, waxaa noo cuntami waayey inaan shirkaasi sii joogno, waana qaadacnay, waana ka soo baxnay. waxaan rabnaa marka ugu dambaysa inaan baaq u jeedinno dhammaan hay-adaha taageera saxaafadda Soomaaliya in arrintaasi fiiro gaara ay u yeeshaan, calaama su-aalna ay saaraan, maadaama stakeholderska la doonayo in markaa saxafiyiinta Soomaaliyeed lagu badbaadinayo qayb ay ka yihiin dowlad goboleedyada deegaanada gacanta ay ku hayaan, in doorkooda la siiyo. mar haddii doorkaasi uusan muuqan, waxaan u sheegaynaa hay-adaha taageera saxaafadda Soomaaliya in arrintaasi ay fiiro gaara u yeeshaan, isla markaana dadka maamulaya ay ku og yihiin arrimahaasi ay ka fiirsadaan arrintaasi in loo dhan yahay iyo in kale. haddii doorkaasi uu maqan yahay, waxaan u sheegaynaa in waxa soconaya ayba yihiin wax markaa siyaabo kale macnaha loo maamulayo. ma dheeraynayno, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu baaqaynaa in arrintan ay soo farageliyaan madaxda ugu sarreysa hadday yihiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed. والسلام على رسول الله. سيدا أي صاحبتي إيجا هريي وزير هذا ورفافنتا دولة جبلتك، وزير ورفافنتا دولة جبلتك جبلان، وزير ورفافنتا هرشابيلا، إيه وزير ورفافنتا دولة جبلتك قل مدوب أي شيئين. وحن مقالة مقدشة ونمد مالنتي شليتو شر أي نقوم ارتقادي وزارة ورفافنتا نغنك يد الحيس ك دولة فدرال كالصوماليات و أجندهيس وأها شركة طبعا عالمية بدبادة صحفية صوماليات. أنا جو سو أجيبني أيان من مقالة مقدشة وزير هذا هير فدرال دولة قبلية دلك كجر وزير هذا حالي سنة بتقليان وسيحني رورتي هرانا سيدا قرالكي أي ناس درين وقيبتك أها وهي عندنا شركة كقيب قال له هسي الشيء وحنا الله شيء شركة إنه كدعاي أميسون VIP جودها هولك شركة أميسون سيدي subaxnimo ayaan wada tagnay halkaas annaga iyo xubnihii kale nala socday ee dawlad goboleedyada ka socday. markii aan shirkii tagnay waxaa inoo muuqday waxyaabihii ay inoo soo direen iyo ajandihii shirka intii aan dawlad goboleedyada caasimadahooda ku sugnaan waxay inoo sheegeen ajando kan ka duwan aan maanta meesha iyada ugu nimid annagoo matalayna dabcan wasaaraduhu waxay matalaan dawlad goboleedyo wadanku waa federaal shaki kuma jiro talada federaalkana waa la wada leeyahay wasaaradaha heer federaal iyo heer dawlad goboleedna waxaa ka dhaxeeya wada shaqayn sidii loo horumarin lahaa saxaafadda Soomaaliyeed. hayeeshee markii aan meesha tagnay waxaa inoo baxay wixii nala ku cazumay wax ka baxsan oo ah shir lagu sheegay saxaafadda Soomaaliyeed badbaadadeeda markii dambana aan u aragnay inay kooxi wadato oo ay rabto inay wax ku boobaan magaca saxaafadda Soomaaliyeed iyagoo adeegsanaya dabcan hay'adaha kala duwan iyaga ay xiriirka goonida la leeyihiin. sidaa daradeed markii aan eegnay maslaxada deegaanada aan ka nimid ee dawlad goboleedyada ah ee leh suxufiyiin kala duwan oo aan ognahay duruufaha iyo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan annagoo matalayna isteediyadii aan ka nimid waxaan garwaaqsanay inaanay ahayn wax
saxa waxa meesha ka jiro oo aan u aragnay in saxaafadii Soomaaliyeed laftirkeeda lagu kala qaybiyay qaarna la faquuqayo aysan door ku lahayn qaarna loo arkayo kuwa ay iyagu ay la shaqaysan karaan inay iyagu yihiin sidaa daraadeed markaan ajandihii saaka iyadoo xalay la filayay in ajandaha noo keenaan aan noo soo dirin saaka ajandihi ay noo qaybiyeen door muhiimana aanan ku lahayn wasaaradaha warfaafinta dawlad goboleedyada dalka ka jira iyo saxaafadda madax bannaan ee dawlad goboleedyada dalka ka jira intaba in doorkooda saliimka uusan meesha ka muuqanin waxay noo soo baxday marka inay magacdil iyo ku tahay xaqiraad wasaaradaha warfaafinta dawlad goboleedyada dalka ka jira iyo warbaahinta ballaaran ee ka jirta dawlad goboleedyada dalka anagoo og boqolkiiba 80 warbaahinta Soomaaliyeed in shaqaalaha u shaqeeyo ay wadankoo dhanba ay wada joogaan guud ahaanba dawlad goboleedyada marka laga reebo kuwa caasimada joogo ee Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka ugu weyn ay ka soo gaarto qaraxyada iyo dhimashada intaan ognahay magaalada Muqdisho markii aan hoos isu eegnay markii aan wada hadal dheer sameynay sida ay wax u socdaan waxaan garwaaqsanay sida ay saaxiibadayba sheegeen in si guud ahaan shirkaas aan u qaadacno codkeennana aan gaarsiino saxaafadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inuusan ahayn shir iyaga lagu matali karo oo qaabka ay wax u socdaan aan u aragnay inay qolo rabto inay wax ku boobto anagoo dabcan waayahanba inta wasaaradda warfaafinta laga bedelay wasiir Yariisow aan u arkaynay in wasaaraddu ay tahay wasaarad fadhiida oo aan shaqaynaynin anagu waxaan la soo shaqaynay qaarkayagu wasiiradii ka horeeyay wasiir Yariisow gudoomiyaha gobolka Banaadir wada shaqayn fiican baa ina soo dhaxmartay waxaan la soo shaqaynay wasiir Maareeye waxaan la soo shaqaynay Mustafa Dhuxulow iyo kuwii kale ka sii horeeyay intaba waxaan u aragnay marka dhibaatada wasaaradda warfaafinta ay ku hayso warbaahinta Soomaaliyeed iyo saxaafadaha ka jira dawlad goboleedyada dalkaba inay ugu wacan tahay wasiir la'aanta wasaaradda waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo dawladda intuba in wasaaraddaas anagoo og in mas'uuliyiin kale ay joogaan hase yeeshee waxaan u aragnay mas'uuliyiin aan gudan karaynin waajibkii loo igmaday aan hogaamin karaynin hagi karaynin saxaafadda Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta Soomaaliyeed dhammaanba in shirkaas iyo sida ay wax u socdaan midnaba aan lagu matali karaynin dawlad goboleedyada anagu aan ka nimid shirkaasna si toos ah aan u qaadacnay sidoo kale waxaan rabnaa inaan u sheegno hay'adaha caalamiga ah ee magaca saxaafadda Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay in malaayiin dollar sanad walba lagu bixiyo taageeridda dawladda Soomaaliyeed iyo saxaafadda Soomaaliyeed intaba waxaan shaki ku jirin in haddaan nahay dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliyeed wasaaradooda warfaafinta in wax door ah ama dhaqaale aysan marnaba naga soo gaarin shirarka caalamiga iyo shirarka kale oo localka ee gudaha lagu qabta intaba cidda ay dhaqaalaha siiyaan anagu aan ogeyn saa daraadeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u sheegaynaa hay'adaha caawiyo saxaafadda Soomaaliyeed haddii ay caawinayaan wasaaradda warfaafinta federaalku waxay dallad u tahay wasaaradaha warfaafinta dawlad goboleedyada dalka oo dhan ka jiro hadday wasaaradda caawinayaan inay ogaadaan wadanka inuu federaal yahay talada dalkuna ay wada wadaag tahay wixii magaca saxaafadda Soomaaliyeed lagu helaana ay waajib tahay inay helaan saxaafadda ka jirta dawlad goboleedyada dalka oo dhanba marnaba magaceena haddaan nahay dawlad goboleedyada dalka ka jiro inta wax lagu soo qaato in saxaafadda Soomaaliyeed inta xaqa u leh la duudsiyo wasaaradaha warfaafinta doorkii ay ku lahaayeen oo ah helitaanka tababarada iyo helitaanka qalabka agabka ay u baahan yihiin intaba in magaceena wax lagu soo qaato kadibna aan heli weyno iyadana waa uga digaynaa hay'adaha taageero sida inooga muuqata hay'ado kala duwan shirkan qabanqaabadiisa iska lahaa waxaan isleenahay dawgii aad shirkan u aasaasteen mid aan ahayn in idinkana la idinkugu wacay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u sheegaynaa dawlad goboleedyada annaga aan matalo ee aan warfaafinta ku matalo inaan si toos ah u qaadacnay shirkii aan nalagu cazumay oo ajandihii naloogu yeeray maahay mid kale uu meesha iyada inooga muuqday waxaan ka raali garinaynaa warbaahinta Soomaaliyeed oo aan ognahay qayb inta loo kala qaybiyay qaybna la rabo in lagu shaqaysto qaybta kale ee iyana mudan inay xaqooda helaana si aan mudneen loola dhaqmo warbaahinta Soomaaliyeed waxaan ognahay inaysan ku midaysnayn ururadan ay inta badan wada sheeganayaan walow aan ognahay wada hadal badanna inuu u dhaxeeyo intii deegaanadeeni joogay ee saxaafadda ahaana ayagana doorkooda muhiimka aysan haysanin sidaa daraadeed annagoo wada dhan oo warbaahinta ku matala deegaanadeena waxaan si toos ah uga baxnay shirkii waxaan rajaynaynaa in codkayaga meesha uu gaari lahaana aan gaarsiino aan la kulanno madaxda qaranka hadday tahay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo muhiim u ah magacaabidda booska bannaan ee wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliyeed si degdeg ah si habsami u socodka wasaaradaha warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliyeed ee kuwa federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jiraba ay si wanaagsan